السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markii ay dhacday xukuumadii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 waxa dalka ka dhismay jabhado waaweyn oo qaarkood dagaaladaasi hubaysnaa ay kula jireen xukuumaddaasi halka kuwa kalena markii burburku dhacay ay sameysmeen magacyada waaweyn ee kamid ahaa saraakiishii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed muddo dheerna ay isqabsadeen xukuumadii militariga ahayd ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre waxa kamid ahaa gudoomiyayaashii jabhadihii SSDF iyo USC Cabdillaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Faarax Ciidid waxa ay labadan mas'uul muddo dheer ku jireen xabsiyadii kala duwanaa ee dalka gaar ahaan xabsigii Mandheera ee u dhawaa magaalada Berbera iyo xabsigii magaalada Muqdisho sidoo kale markii dambe Cabdillaahi Yuusuf Axmed markii uu ku hor yimid dawladda Soomaaliya ee uu gudbay dhinaca iyo dalalka Kenya iyo Ethiopia waxa dhacday in muddo dambe kadib xabsi la dhigay oo uu muddo 6 sanadood ah ku soo qaatay xabsiyadii magaalada Addis Ababa dad badani waxa ay labadan mas'uul ku xasuustaan waqtiyadii dagaalada sokeeye ka qarxeen saameyntii weyneyd ee ay ku lahaayeen siyaasadda nabadda dagaalada iyo khilaafaadkii beelaysnaa waxa dad badani isweydiiyaan doorkii hogaamineed ee ay ku lahaayeen xaaladihii kala duwanaa ee burburka kadib inkasta oo ay saaxiib ahaayeen haddana dad badani waxa ay qabaan in khilaaf weyni u dhaxeeyay taasi oo ay dadku kala garan waayaan sida ay u dhacday waxa haddaba in khilaaf weyni u dhaxeeyay meesha ka saaray Xuseen Maxamed Faarax Ciidid oo bishan la hadlay telefishinka CBA isaga oo ka hadlay xiriirkii weynaa ee taariikhiga ahaa ee u dhaxeeyay aabihii General Maxamed Faarax Ciidid iyo Cabdillaahi Yuusuf Axmed Xuseen Maxamed Faarax Ciidid waxa uu xiriirka Cabdillaahi Yuusuf iyo aabihii ku tilmaamay mid saaxiibtinimo oo muddo dheer soo taxnaa iyo sidoo kale in ay labadooda ehel aad isugu dhawaayeen isaga oo sheegay in ay mar walba ka sinaayeen sidii ay Soomaaliya u heli lahayd sida uu hadalka u dhigay cadaalad nabad iyo deganaansho isaga oo nooca xiriirkaasi faahfaahinaya sidoo kalena ka hadlaya nabadeyntii ay ka sameeyeen magaalooyinka Gaalkacyo iyo Kismaayo iyo doorka ay ku lahaayeen labadaasi mas'uul waxa uu Xuseen Ciidid ku yiri waraysigaasi uu siiyay telefishinka CBA sidan saaxiibtinimo waqti dheer ah ay isla soo mareen oo ay isku lahaayeen oo ka dhaxaysay waxay kamid ahaayeen 12 sarkaal ee waaweynaa ee wadanka loo soo barbaariyay ee dibadaha wax ku soo bartay waxa ay ahaayeen saraakiishii aniga isoo barbaarisay ee koritaankayga qaybta weyn ku lahaa markii aan dhashay ilaa markii aan hana qaadayay waan xasuustaa xiriirkii ka dhaxeeyay Cabdillaahi Yuusuf iyo qoyskayaga xaaskiisa waxay ahayd sarkaalad weyn oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isaga ayaa ciidamada ku daray walaalana waan ahayn xagga hooyada dhinac walba xiriir baa naga dhaxeeyay oo waan isaga dhaweyn waxaan xasuustaa 4 sano ee aan raashinka u geynayay ee aan xabsiga ugu geyn jiray kana soo qaadayay weelka cuntada mar walba marka aan raashinka xabsiga geeyo ayaan ku arki jiray labadooda oo halkaasi ku wada xidhan sidoo kalena wada jooga marka ay duhurka tahay ee aan weelka raashinka ka soo qaadayo ee ay dhameeyaan waqtiyada duhurka ayaan ka soo qaadi jiray oo aan soo mari jiray markii haddaba xukuumadii Soomaaliya xabsiga ka soo deysay ee ay xabsiga ka soo wada baxeen mid walba xukuumadii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre xil ayay u dhiibtay nin waxa la geeyay oo madax looga dhigay xaruntii Fiaad ninka kalena waxa loo dhiibay xaruntii Asbiima haddana markii la gaaray dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia nina waxa loo dhiibay qaybta koonfurta oo waxa uu ka howlgalay dhinaca iyo Soomaaliya abow nina waxa loo dhiibay dhinacan kale ee goday ilaa Jigjiga kadib waxa ay sidaa kaga qayb galeen dagaalkaasi haddana waxa ay ka wada qayb galeen xoreyntii wadanka oo waxay hogaaminayeen jabhadihii hubaysnaa waxa ay ka midaysnaayeen oo ay isku mabda ka wada ahaayeen xukuumadii waqtigaasi jirtay oo ay aad uga soo horjeedeen xiriirkaana waxa u daliil ah sidii xataa markii dambe loo wada dhisay dawladdii Soomaaliyeed ee lagu soo dhisay Imbagati oo Kenya ah waxa lagu heshiiyay in wadanka la wada dhiso oo wax laga qabto dhinaca Puntland iyo xaggan kaleba oo la wada dhiso dawlad ballaaran oo dalka dib u soo wada celisa in wada hadal laga galo xaaladda markaa jirtay ee dawladdii Cabdilqaasim Salaad Xasan ay muddo dheer ka wada hadli jireen aniguna markan dambe Cabdillaahi Yuusuf waxaan kala shaqeynayay dawladdii ballaarneed ee lagu soo dhisay Imbagati waana midhaha xiriirkii u dhaxeeyay aabahay iyo isaga waxaad ogtihiin markii dambe in dawladdaasi la soo dhisay Cabdillaahi Yuusuf madaxda ka ahaa ee dalka ay soo degtay in aan anigu ahaa sarkaalkii filla Soomaaliya ku wareejiyay
waxaan nasiib u helay in aan halkaa ku dhisno wax badan oo waddanka waxtar u lahaa. waxaa halkaa lagu dhisay dowladdii ugu horreysay ee ku meel gaadh ah oo hanata dalka oo dhan. cabdulaahi yuusuf iyo jenaraal caydiid aad bay isugu dhowaayeen intii ay noolaayeen. ilaa hadda anaa nool oo labada qoys isku xidha, aniga ayaa gaalkacyo midaynaya oo hawshii ay ka tegeenna qabanaya. heshiiskii gaalkacyo ee cabdulaahi yuusuf iyo jenaraal caydiid. xuseen maxamed faarax caydiid oo ka warramaya saamayntii iyo doorkii ay ku lahaayeen jenaraal maxamed faarax caydiid iyo cabdulaahi yuusuf axmed heshiisiintii magaalooyinka gaalkacyo iyo sidoo kale heshiiskii magaalada kismaayo. waxa uu yidhi, wuu jiray heshiiskii gaalkacyo ee iyagu islaaxiyeen. waxaa la doonayay in lagu mideeyo magaalada gaalkacyo. heshiiskaasi markii uu dhacayay waan joogay anigu oo goobjoog baan ahaa, waxaana kharashka bixiyey waddanka Maraykanka. $75,000 ayuu bixiyey jenaraal Johnston. waxa uu bixiyey $75,000 oo lagu bixiyey xafladii heshiiska lagu kala saxeexday. waxaa la doonayay in heshiis buuxa laga gaadho oo lagu mideeyo magaalada gaalkacyo. heshiiska iyo weliba xataa heshiiskii kismaayo ee loo dhiibay jenaraal liiqliiqato maxamed xirsi morgan. ujeeddada heshiiska gaalkacyo waxa uu ahaa in meesha lagaga saaro khadka cagaaran ee magaalada la kala dhex dhigay oo la mideeyo. ilayn dadku waa dad isku mid ah oo walaala ah, dalkuna waa mide. allaha u naxariistay jenaraal maxamed faarax caydiid iyo cabdulaahi yuusuf axmed waxa ay si wada jir ah u saxeexeen 1993 heshiiskaasi lagu mideeyey magaalada gaalkacyo. heshiis buuxa ayuu ahaa oo ay ku gaadheen in meesha lagaga saaro jabhadihii ay kala hogaaminayeen ee SSDF iyo USC in ay mar dambe ku dagaalamaan deegaan ka mid ah magaalada gaalkacyo. gaar ahaan waxay heshiiskan ku gaadheen in SSDF iyo USC aan wax dagaal dambe ahy ku dhex marin magaalada gaalkacyo ee caasimadda gobolka mudug, sidaana lagu walaaleeyo dadka walaalaha ah ee wada dega dhammaanba gobolka. heshiiskaasi ayuu yidhi xuseen maxamed faarax caydiid waxa uu keenay in allaha u naxariistay cabdulaahi yuusuf lagu sharfo oo si weyn loogu soo dhoweeyo madaarka gaalkacyo, maadaama uu isagu wakhti dambe ka yimid dhibaatadii uu ka soo mutay oo uu ka soo baxay xabsigii uu ku xidhnaa gudaha waddanka Itoobiya oo uu mar dambe yimid dalka. caydiidna ay saaxiibo muddo dheer ahaayeen, sidoo kalena ay saraakiil waaweyn isla ahaayeen. waxaa fududaatay in ay heshiiskaasi kala dhex dhigaan ummadooda, sidoo kalena uu Maraykanku ku qancay in uu ugu yaraan heshiiskaasi fududeeyo. waanad garan kartaa in $75,000 aanay ahayn lacag badan oo ay aad u yar tahay. haddana waxaa lagu qabtay xafladii heshiiska. heshiiska kale ee kismaayana waxaa loo xil saaray liiqliiqato iyo maxamed siciid xirsi morgan. isla sanadkaasi 1993 waxaa kismaayo lagu saxeexay buuri xuseen caydiid in aan kismaayo dagaal dambe ka dhicin oo laga joojiyo dhibaatada dagaalada ee dadka walaalaha ah ku dhex maraysay halkaasi. liiqliiqato iyo jenaraal morgan ayaa nabadaasi guntay oo heshiiska kismaayo wax badan ka qabtay. labadaa heshiis waxa ay keeneen in guud ahaan koonfurta sidaa lagu nabadeeyo, oo waxa ujeeddadu ahayd in jabhadaha iska soo horjeeday iyo deegaamadii ay kala joogeen sidaa lagu nabadeeyo, kadibna ummadda loo dhiso dowlad wanaagsan oo nabad dalka ku soo celisa, dalkana dib u dhista. doorkaasi weyn ayay labadan mas-uul ku lahaayeen nabadaasi bilowgii la isla gaadhay si aanay dhibaatadu u sii socon. jenaraal maxamed faarax caydiid iyo saaxiibkii korneyl cabdulaahi yuusuf axmed waxa ay ujeeddadoodu ahayd buuri xuseen caydiid in marka nabadaasi koonfur la wada gaadhsiiyo ee dagaalada la joojiyo, in kadib lala hadlo madaxda waqooyi oo wadahadal la furo, lagana hadlo dhibaatadii ay dowladdii siyaad barre u geysatay dhulka waqooyi, kadibna dalka laga dhiso dowlad midaysan. waxay aad u danaynayeen in walaalada waqooyi lagala hadlo dhibka weyn ee dowladdaasi milatarigu u geysatay guud ahaan shacabka gobolada waqooyi. arrintaa dardaarankeeda waxaa lahaa cabdulaahi yuusuf iyo aabba maxamed faarax caydiid. labadoodaba ilaahay ha u naxariistee waxa ay doonayeen mar walba in ay dowlad awood badani ka dhisanto Soomaaliya. sidaas ayuu yidhi xuseen maxamed caydiid oo ka hadlayay xiriirkii gaarka ahaa ee ka dhexeeyey korneyl cabdulaahi yuusuf axmed iyo maxamed faarax caydiid.